waxay gaadhay 100 milyan oo booqdayaal ah waqti qiyaasi oo kooban waxaana yaala in ka badan 1 milyan oo asaartii ama raadadkii qadiimiga ahaa ah waa magaalo aad weyn oo ku dhex taalla bartamaha Beijing ee caasimadda Shiinaha waxayna goobjoog u soo ahay taariikhda dheer ee Shiinaha waxaana ka buuxa siro waxaana jira sheekooyin malaawaal ah oo laga sameeyay waana qalcad ama dhufayskii ugu horeeyay ee boqorradii hore ee Shiinaha 24 imbirador ayaana kala dhaxlay oo soo maray waxayna magaceeda ku kasbatay amnigeeda sida loo sugo iyo diyaarinta tallaabooyinka ka hortaga haddii ammaankeedu qiiro galo mana laha meel lagu gabado qof kastaana wuu ku arki karaa si dhib la'aan ah sidaana wax loo sameeyay waa ilaalinta boqorka magaalada xaaraanta ah ama Forbidden City qalcadda dahsoon ee Shiinaha magaalada xaaraanta ah ama Forbidden City waxa ay ku taallaa caasimadda Shiinaha ee Beijing waxay hore u ahayd qasriyadii boqortooyooyinkii labadii qoys ee Ming iyo Qing ee xukumayay waddanka Shiinaha waana mid ka mid ah dhismayaasha alwaaxda ama looxaanta ka samaysan ee ugu waaweyn looguna ilaalinta badan yahay adduunka wuxuuna dhismaha magaaladu bilaabmay sanadkii 1406 ee miilaadiga intii lagu guda jiray xukunka imbiradorkii Qing ee qoyskii Ming wuxuuna socday dhismihiisu 14 sano iyadoo uu ku fadhiyo aag dhan 7200 kilomitir square waxaana ka qayb qaatay dhismihiisa 1 milyan oo shaqaale ah waxayna koobsatay oo ka dhisan in ka badan 70 qasri iyo 90 barxadood waxaana uu ka kooban yahay 9999 qol kadib tirakoobkii lagu sameeyay 1973 waxaana ku wareegsan magaalada derbi dhererkiisu yahay 10 mitir marka lagu daro gudbiyad balaciisu yahay 250 mitir kaasoo waagii hore difaac ahaan loo isticmaali jiray taasoo ka dhigaysa magaalada mid ka ilaashan weerarada cadowga waxayna magaaladu leedahay 4 albaab oo kii kasta jiho gooniya ku yaalo kuwaasoo leh towers laga waardiyeeyo ama laga ilaaliyo magaalada dhererkooduna gaadhayo in ka badan 27 mitir dhismaha magaaladani wuxuu u qaybsan yahay 2 qaybood qayb dibadeed iyo qayb gudaha ah qaybta dibadda waa qaybta ay ku yaalaan 3 hool ee lagu dhigo dabaaldegyada waaweyn qaybta gudahana waxaa loo yaqaanay maxkamadda gudaha waxaana sidoo kale ku jiray dhismayaasha uu ku yaalay 3 qasri oo boqorka iyo qoyskiisu ay ku noolaayeen 24 imbirador ayaa soo maray magaaladan marka laga soo bilaabo xilligii ay talada hayeen qoyskii Ming iyagoo ka soo arriminayay Shiinaha in ka badan 490 sano iyaga u adeegsaday xilligaas mid ka mid ah qasriyada magaalada xarunta hoyga imbiradorka iyo xarunta guud ee howlaha siyaasadeed ee dalka marka la eego qolalka badan iyo qasriyada tirabeelka ah ee ku yaala magaalada way adkayd in la ogaado halka uu seexdo imbiradorku isaga oo si joogto ah u bedeli jiray meesha uu seexdo iyo waliba marka lagu daro nabadgelyada iyo ilaalada adag ee ay magaaladu ku naaloonayso iyadoo sidaa li ajligeed ku noqotay qalcadda ama dhufayska ugu mudan boqortooyooyinkii xilligaas iyadoo sidaa ah ayaa haddana waxa ay la kulantay magaalada dhowr musiibo oo kala duwan sanad kadib markii la dhammaystiray dhismaha magaalada gaar ahaan sanadkii 1422 waxaa haleelay dab aad weyn oo asiibay 3 hool kuwaasoo ka samaysnaa leban dahab ah marmar iyo looxaan kala duwan haddana mar kale isla sanadkii 1557 ayaa magaalada gubatay dabkiina wuxuu ka kacay 3 hool mar kale laakiin dib ayaa loo dhisay 4 sano kadib waxaana dabka kadib la bedelay in badan oo ka mid ah astaamihii iyo magacyadii magaalada 40 sano kadib dhacdadaas magaaladu mar labaad ayay gubatay marka 3 hool iyo qasriyo ka dambeeyay ayaa dabku baabiiyay waana arrinka adkeeyay dib u dhiskii kaasoo socday in ka badan 20 sano iyadoo dib loo furay sanadkii 1627 miilaadiga intaas kadib magaaladu waxay bartilmaameed u ahayd weerarada cadowga waxayna magaaladu marar kala duwan la kulantay dhowr dab oo waxyeello weyn soo gaarsiiyay iyadoo dib u dhiskii u dambeeyay lagu sameeyay sanadkii 1695 iyadoo intaa wixii ka dambeeyay aanay waxba iska bedelin qaab dhismeedka ilaa maantadan aynu joogno wixii ka dambeeyay kacaankii Shanghai ee Shiinaha sanadkii 1911
go'aan ayaa la gaadhay taasoo laga dhigayo dhammaan qasriyada ku yaala magaalada hanti qaran oo dowladdu ay gacanta ku hayso. laakiin qoyskii markaa talada hayay ee reer Shinji ayaa hor istaagay fulinta go'aanka, iyadoo imberadorka loo ogolaaday inuu si ku meel gaar ah u sii joogo qasriga ilaa uu ka dhacay afgembi sanadkii 1924. waxayna saraakiishii inqilaabku ka eryeen imberadorkii magaalada gabi ahaanba. wax ka yar sanadna waxaa lagu dhawaaqay aasaasidda madxafka Palace Museum ama madxafkii qasriga, iyadoo sidoo kale dadweynaha loo furay. gugii 1933 ayaa dagaal ka dhex qarxay Jabaan iyo Shiinaha, dabadeedna iyadoo laga ilaalinayo dagaalka aasaarta iyo dhaxalka soo jireenka ah ayaa maamulka madxafku wuxuu go'aansaday in loo qaado dhammaan waxyaabaha yaal magaalada gudaheeda dhanka magaalada Shanghai. sidaa darteed 13,427 sanduuq iyo 24 walxood oo kala duwan oo ay wehelinayaan buugaag iyo dokumentiyo ayaa loo qaaday dhanka Shanghai, iyadoo intaa kadib looga sii wareejiyay kaydka aasaarta dhaqanka. sidaas ayaanu xaalku ahaa ilaa qabsashadii xisbiga shuuciga ee dalka iyo aasaaskii jamhuuriyadda shacbiga ee Shiinaha sanadkii 1949, iyadoo dib u habeyn ballaaran lagu sameeyay magaalada xaaraanta ah ama mamnuuca ah ama Forbidden City hadba sida magaceedu yahay. sanadkii 1961 ayaa golaha dowladdu wuxuu soo saaray qaraar uu ku sheegay in magaalada xaaraanta ah ama Forbidden City ay tahay waaxda qaran ee ugu weyn ee ilaalinta waxyaabaha soo jireenka ama dhaqanka ah. sanadkii 1987 ayaa hay'adda qaramada midoobay ee ka shaqeysa ilaalinta waxyaalaha qadiimiga ah ama dhaqanka ee adduunka ee ku magac dheer UNESCO waxay magaalada ku dartay liiska aasaarta hidaha iyo dhaqanka adduunka. tan iyo markii qasriga loo bedelay madxaf wuxuu noqday mid soo jiita indhaha dalxiisayaasha maxalliga ah iyo kuwa ajaanibta ah, wuxuuna noqday mid qaabila sanadkii 7 ilaa 8 milyan oo dalxiisayaal Shiine iyo ajnabi ah. balse guud ahaan imika waxay magaaladu qaabishaa 15 milyan oo dalxiisayaal ah sanadkii, waxayna kaalinta koowaad kaga jirtaa dhammaan madxafyada ama kaydadka hiddo dhaqameed ee adduunka. waxaana lagu sameeyay xoogaa isbedelo intii aynu ku guda jirnay qarniga 21aad, waxaana sanadkii 2015 laga furay magaalada madxafka farshaxanka mid ka mid ah daaraha magaalada. aagga furan ee magaalada ee loo ogol yahay dalxiisayaashu wuxuu gaadhay 76% waqtigan aynu joogno. waxaana sidoo kale ku socda magaaladan taariikhiga ah dib u hagaajinta lagu hayo qasriyadeeda iyo astaamaheeda taariikhiga ah iyo ballaarinta aagga dalxiisayaashu booqan karaan. sida laga soo xigtay diiwaanka ama laysaska dhacdooyinka ee magaalada, waxaa soo booqday madxafka ama magaaladan muddadii u dhaxaysay January ee sanadkii 2012 ilaa iyo June sanadkii 2018 100 milyan oo dalxiisayaal ah. waxayna soo mareen qasriyada magaaladu heerar kala duwan oo ah shaqooyinka ilaalineed iyo dayactirka dhismayaasha qadiimiga ah. sidaa darteed waxaa lagu naanaysay magaalada tii u saaxiibka ahayd 100 milyan ee dalxiisayaal. madxafka Palace Museum oo ku dhex yaal magaalada gudaheeda waxaa yaala in ka badan 1.5 milyan oo alaab taariikhi ah, taasoo ka dhigan 42% wadarta alaabooyinka qadiimiga ah ee Shiinaha, oo ay ku jiraan 140,000 oo sawir looxeed, daabacado iyo khadkii qadiimiga ahaa ee Shiinuhu adeegsan jireen, kaasoo ah 4 meelood oo meel ka ah khadkaas qadiimiga ah ee yaala madxafyada kala duwan ee adduunka. madxafka waxaa kaloo yaala 420 sawir looxeed oo ka soo jeeda qoyskii Yuan, oo ay wehelinayaan 310 qaybood oo ahaa aaladihii khadka loo isticmaalayay oo asalkoodu u noqonayo isla waqtigii qoyskaasi talinayay. waxyaabaha ugu caansan magaaladan guud ahaan waa taalooyinka xayawaanka tiniinka ama dabdaaca markaynu af Soomaaliyeeno, kaasoo ay calaamad ahaan ugu taagnaa Shiinaha astaanta awoodda iyo mansabka, iyadoo taalooyinkiisa iyo sawiradiisa aad lagu faafiyay magaalada oo dhan ilaa heer aan cidina aqoon tiradiisa guud. iyadoo magaalada xaaraanta ah ama Forbidden City ka dhigaysa magaalo dhaqan iyo mid taariikhi ah oo aan cidina awood u lahayn inay tirtirto dhibaatooyin iyo dagaalo walba oo ay la kulanto. noo soo sheeg mawduucii ayaad jeclaan lahayd inaynu kaga hadalno mawduuca xiga.